mustaqbal warbaahin wax dhista fiiri saacadda saaxiib waa xilligii warka mustaqbal aan heli jirnay daawadayaal ku soo dhawaada warka kooban ee mustaqbal qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah wasaaradda caafimaadka iyo guddiga arrimaha bulshada ee golaha shacabka oo kulan ka yeeshay ka hortagga faafitaanka coronavirus madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo shacabka deegaanada maamulkiisa ka codsaday inay qaataan talooyinka dhaqaatiirta ay soo jeedinayaan ee la xiriira COVID-19 wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda Soomaaliya waxa ay sheegtay in muddo 2 toddobaad gudahooda lagu keenayo gudaha dalka shaybaarkii lagu baari lahaa cudurka corona iyo warbixin ka hadlaysa in 5 urur oo argagixiso iyo isbahaysi ay dhiig ku daadiyaan qaaradan Afrika qodobadaas oo faahfaahsan markan ku soo dhawaada daawadayaal wasaaradda caafimaadka iyo guddiga arrimaha bulshada ee golaha shacabka ayaa kulan ka yeeshay arrimo ku saabsan ka hortagga faafitaanka coronavirus sida warkan ay ku faahfaahinayso Nasriin Maxamed Ibrahim wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan la qaadatay guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxayna ka wada hadleen sida looga shaqeyn karo arrimaha caafimaadka ka hortagga faafitaanka caabuqa coronavirus oo Soomaaliya laga helay 3 kiis oo kamid ah caabuqan wasiirka wasaaradda caafimaadka Marwo Fawziya Abikar Nuur ayaa sheegayso waxyaabaha isla soo hadal qaadeen guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan ka wada hadalnay cudurkan coronavirus 19 ee wadanka 3 kiis laga helay guud ahaan xaaladda siday tahay inaan isla socodsiino siday ku imaaday iyo wixii ka hortag ah ay dawladda iyo wasaaradda caafimaadka gaar ahaan sameysay bilihiina soo dhaafay waxaan warbixin waafi ah ka siiyay waxyaalihii aan qabanay waxyaalihii noo suurtoobay iyo inaan ka codsado guddiga oo runtii aad u daneynaya inay shaqo weyn la qabtaan waxyaalaha ay naga kaalmeyn kara waxaan ka wada hadalnay sida wacyigelinta kor loogu qaadi lahaa sidii wax looga qaban lahaa ma aragtay dadka barakacayaasha ah oo iyaga naftirkooda xaalad aad u liita ku nool magaalada daafaheeda kala duwan iyo wadankoo dhan sidii wax looga dhihi lahaa loo sixi lahaa maxaabiista ku xiran xabsiyada oo iyaga naftirkooda xaaladooda mararka qaarkood ma xaaladooda ay liidato oo ah meel ciriiri ah waa tii la fasaxay iskuulada waa tii la fasaxay wasaaradaha waa tii safarada la joojiyay waa in waxaan kaloo aad uga hadalnay in safarada diyaaradaha guud ahaan la wada joojiyo in la xakameeyo meel allaala meeshii uu cudurka naga soo geli karo cudurkan waa cudur khatartiisa leh waa cudur aad u fiday adduunka oo dhan u fiday waxyaalaha ugu horeeya oo lagu xakameyn karo waxa waaye in wadanka bal laga taxadaro xuduudihiisa iyo inaan sidii hore la isu gooshin oo ay control fiican laga sameeyo meelaha laga soo galo wadanka in la xakameeyo guud ahaan socodka dadka in ma aragtay lagu dadaalo wacyigelinta dadka siday ugu hortagi lahaayeen cudurka oo ay guryahooda joogaan oo ay tahay wixii daruuri ah qofka kaliya inuu u baxo in ilmaha laga celiyo inay banaanka ku ciyaaraan iyagoo ma aragtay badan is helaan in dadkii isu dhawaadaan oo ma aragtay ay ka dhalato meeshaas in hadii ilaahay ma dhahay qof cudurkii qaba caabuqa korkiisa ku jiro qofkii kale u gudbiyo sida looga taxadiraha iyo nadaafada guud ahaan iyo mustaqbalka maxaa dawladda dhinaceeda diyaarka ah oo ay uga hortagi kartaa loo kaalmeyn kara qof haduu xanuunkaas la soo dhaco waxaan isla soo qaadnay dhignay in ma aragtay taxadirka uu badnaado wacyigelinta
wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa wada dadaala ay bulshada kaga wacyigelinayso faafitaanka caabuqa coronavirus oo saameyn xoog leh ku yeeshay bulshooyinka ku nool caalamka. Nasriin Maxamed Ibrahim, Mustaqbal Media. madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa shacabka deegaanada maamulkiisa waxa uu ka codsaday in ay qaataan talooyinka ay soo jeedinayaan dhaqaatiirta ee ku aadan qaabkii looga hortagi lahaa faafitaanka COVID-19 sida warkan uu ku faahfaahinayo Abshir Cabdullaahi Amiin. madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdilcasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed inay mideeyaan cududoodii awoodooda una istaagaan sidii ay dalkooda ugu samati bixin lahaayeen xaaladaha hadda uu ku jiro. madaxweynaha ayaa cod dheer ugu sheegay shacabka koonfur galbeed iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed inay raacaan talooyinka caafimaad ee loo soo jeedinayo muhiimna ay tahay inay qaataan. sidoo kale madaxweyne Laftagareen ayaa sheegay in caabuqan uu farabaan ku hayo dunida oo dhan. waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo cudurkan ummadda adduunka dhan saameeyay qalqalka geliyay coronaviruska loona yaqaana COVID-19 inaan aan ka hadlaan rabaa insha Allah. waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan shacabka reer koonfur galbeed waxaan rabaa inaan ay yeelaan waxaan wax dhab ah waaye wax dhacay waaye wax cudur ah oo yimid waaye wax adduunyada dhan ka qaylisiiyay waaye oo maanta heer la marayo in meydadkii meel la geeyo la waayo adduunkii horumaray ay la yaabeen oo la qayliyeen oo tabar u waayeen waaye. annaga dad muslinaha nahay dad daruufo badan qabaan nahay ilaahay baan aaminsanahay qadarta ilaahay baan naqaanaa laakiin waxa loo socdo waxa weeye waxa laga cararayo waa qadarta ilaahay waxa loo cararayana waa qadarta ilaahay waa dadaalka bini aadanka. waxaan codsanaynaa dadka shacabka iyo mas'uuliyiinta iyo ummadda oo dhan inay yeelaan talada taqaatiirta ay bixinayaan. taqaatiirta waxay bixinayaan talo badan oo ka hortag ah. Abshir Cabdullaahi Amiin, warbaahinta Mustaqbal, Muqdisho. warka kooban ee Mustaqbal ayaa daawanaysaan. wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda Soomaaliya waxa ay sheegtay in muddo 2 toddobaad gudahooda dalka lagu keenayo shaybaarkii lagu baari lahaa coronavirus sida warkan ay ku faahfaahinayso Shukri Xuseen Sabriye. dowladda Soomaaliya ayaa dalbatay 3 shaybaar oo sameyn kara baaritaanka cudurka coronavirus. waxaa lagu wadaa in qalabkaasi uu dalka soo gaaro muddo 2 iyo 3 toddobaad ah iyadoo ay ku xigi doonto tababarka shaqaalaha ku shaqeyn doona shaybaaradaasi. dowladda Soomaaliya ayaa xilligani baaritaanka qofka looga shaki qabo cudurka coronavirus u dirta shaybaarka hay'adda WHO ay ku leedahay dalka Kenya kaasoo natiijada baaritaanka qaata muddo toddobaadya. wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Siciid Cabdullaahi oo ay weheliyaan wasiirada caafimaadka maamul goboleedyada ayaa booqday xarunta hubinta badqabka bulshada, xarunta daaweynta dadka laga helo corona ee Damartino iyo xarunta gurmadka degdega ee magaalada Muqdisho. wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Siciid Cabdullaahi ayaa warbaahinta uga warbixiyay kormeerkooda iyo howlaha wasaaradda ay wado ee ku aadan ka hortagga COVID-19. saala socotaan isbitaal Martini hadda case baa ku jira sidaas darteed ayaa arkaysaan digniinta iyo dhinacaas wixii birahaas xagga ka ahna inta badan lama geli karo. marka waxaan rabnay in goboladu waa Soomaaliya oo dhan waa afarteeda geesba waa Soomaaliya waxay ayagana run ahaantii nala arkayeen qaabka wasaaradda ay u diyaar garowday sidoo kale ayagana qof waliba awoodiis intay tahay in sidoo kale ay ugu diyaar garoobaan dawlad goboleedyadooda. waxa weyn aad iyo aad ay noo farxad gelinaysaa in wasaaradda caafimaadka ay waqtigan marxaladan la joogo ay dawlad goboleedyada oo dhan ay Muqdisho ku soo dhaweyso badinkoodana aan rajaynayno qaabka hadda mashiinada markay noo yimaadaan inay soo diraan
maxaan dhahdaay dadkii arrimahaasi loogu tababari lahaa ayagoo qof walba uu tababarsan yahayna uu u laabto isteedyadaasi qaybna ka qaata covid-19 ilaahay hadduu yidhaahdo sidii loola dagaalami lahaa. wasiirka caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa horey u cadeysay inay dowladda dhexe ee Soomaaliya aysan haysan qalabka lagu baaro coronavirus. Shukri Sabriye, Mustaqbal, Muqdisho. ugu dambeyntiina daawadayaal waxaan idiin soo gudbinaynaa warbixin ka hadlaysa in 5 urur oo argagixiso iyo isbahaysi ay dhiig ku daadiyaan qaaradan Afrika. warbixintan waxaa soo jeedinaya Yaxye Maxmuud Maxmed. warbixino ay si gooni ah u kala sameeyeen wargeysyada ugu afka dheer caalamka xog uruurino kala duwan oo la sameeyay waxaa lagu ogaaday in dhiigga daadanaya Afrika ay sabab u yihiin 5 urur kuwaas oo wax loogu yeero argagixisada ah iyo kuwa isbahaysi. waxaa la soo bandhigay tirada dadka ay dileen, kuwa ay ku dhaawacmeen weeraradooda, kuwa weerar kala duwan oo ay ka geysteen dalalka dhaca qaaradda Afrika. kooxda Boko Haram 92 askari ay dishay halka ay dhaawacday 47 kale kadib markii weerar ay ku qaaday unug military oo ku sugan degmada Bahare oo dhacda galbeedka Jaad Arbacadiina dhaaftay. dagaalka askarta lagu dilay waxa uu socday 5 saac oo xiriir ah waxaana ka dhashay khasaare intaas gaarsiisan waana mid ugu badan tan iyo sanadkii 2015 oo kooxdan dagaalka halkaas ka bilowday dad hal mar ku layso. kooxda Boko Haram ayaa waxay weerar ka geystaan dalalka dariska ah ee Cameroon, Chad iyo Niger waxaana dalka Chad guud ahaan ay ku dishay in ka badan 2,000 oo qof waana halka loo fartogayo inay ku loolamayaan Al-Qaacida iyo Daesh oo hamigooda bariga dhexe halkaas u rogay. telefishinka ABC News oo wareystay sargaal ka tirsan kuwa Mareykanka oo xogta sheekadan banaanka soo dhigay ayaa sheegay in weerarada Afrika iyo kooxaha ay ugu yeeraan argagixisada ay sii xoogeysanayaan galbeedkii xeebaha dalalka leh ee qaaradda Afrika. sargaalka ayaa tilmaamay inuu ka cabsi qabo in kooxahan ay saldhig ka dhigtaan kuna xoogeystaan Mauritania, Senegal, Sudan, Eritrea, galbeedka iyo bariga Afrika ayagoo isku qaybinaya ilaa iyo 60 urur balse farcooda ugu sareeyo uu yahay Al-Qaacida iyo Daesh. sidoo kale waxa uu sheegay sargaalku u waramay ABC News in kooxahan ay qoranayaan dhalinyaro ku biirta fikirkooda waxaana uu soo qaatay kooxda Ikhwaanul Muslimiin ee Masar oo wada falal ka dhan ah Masiixiyiinta dalkaas. kama marna liiska kooxaha anti-blacka ee fadhigoodu uu yahay Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe waxaana ay dileen ciidamo wata koofiyada buluugta oo astaanta waa ciidamada qaramada midooba gaar ahaan kuwa ka socda dalka Uganda. waxyaabaha ugu badan ee ku riixaya Al-Qaacida iyo Daesh inay helaan dhalinyarada intaas leeg waxa uu sargaalka ka tirsan Mareykanka sheegay inay sabab u tahay shaqo la'aan haysato aad u sareysa. dhalinyaradan waxaa u furan dhowr wado oo kala ah inay ku biiraan kooxaha burcadbadeeda ee maraakiibta afduubata ka ganacsiga muqaabaraadka iyo in la siiyo lacag madax furasho oo xaddigeeda iyo tiradeeda aan loo hayn. kooxahan waxa uu tilmaamay sargaalka u waramay ABC News in dhaqaale badan ay ku sii jireen dhalinyarada taasina ay siiso go'aan inay qortaan inta ay doonayaan waxaana dhanka kale waxyaabaha ugu badan lagu sheegay inay ka mid yihiin dabeecadaha kala duwan ee aadanaha, isla dhaqanka bulshooyinka oo kuwa kala duwan, khilaafka diimeed, isirka, kala duwanaanshiyaha heerarka kala duwan ee nolosha, kala jeclaanta ku dhicista dambiyo kala duwan iyo kuwa kale. 5 urur ee argagixiso waxay wadaagaan daadinta dhiigga inta u dhaxaysa waqooyiga, galbeedka, bariga ilaa iyo bartamaha, xeebaha iyo lama-degaanada ee Afrika oo midba midka kale uu ku dagaalamayo fikirada Al-Qaacida iyo Daesh ayaa warbixinta lagu yiri. wargeyska Washington Post oo soo xiganaya sargaal kale oo Mareykanka ayaa dhaxda ugu soo dhacay sheekadan waxaana uu sheegay in kooxaha la kala safan Al-Qaacida iyo Daesh ee ku sugan Afrika in ayagu qudooda isbartilmaameedsadaan. dadaalka ururinta isu duwridka awoodooda waxay u adeegsadaan tallaabo waliba oo ay ku gaari karaan. wargeyska ayaa sheegay in labadan garab ay xireen 3,000 oo dugsi si ay u gaaraan weeraradooda caalamiga ah uguna gungaaraan. wargeyska New York Times wuxuu dhankiisa sheegay isagoo soo xiganaya ergaga qaramada midoobay ee galbeedka iyo Saxaraha Afrika in Al-Qaacida iyo Daesh weerar ka fuliyaan Burkina Faso, Mali iyo Niger ay bartilmaameedsadeen buundooyinka, kolonyo military iyo dhismayaal dowladda ayna xireen 3,000 oo iskuul oo ay ugu wacan tahay hanjabaadyaha argagixisada waxa ugu yeeray. waxay dileen mas'uuliyiin dawladeed, hogaamiyaal maxalli ah oo ay ku tumeen inay la shaqeeyaan maamulada dalkaas. weerar ay ka geysteen laga soo bilaabo 2016 ilaa 2019 oo ay ku dileen in ka badan 4,000 oo ruux. waxay geysteen marka loo eego sanadkii 2019 qiyaastii 770 dhimasho ah 3 sano ka hor, sidaasna ma aysan ahayn ayaa la yiri.
dukumentiyo sir ah oo laga helay taliska Mareykanka ee Afrika waxaa lagu sheegay in duqeynta Mareykanka tan iyo 2017 lagu dilay xubno gacan saar leh dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab waana labalaabka duqeynta Mareykanka uu amray madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo mid kamid ah lagu dilay hogaamiyihii Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane Abu Zubeerna kooxda ay u taqaanay Africom ayaa duqeynta Soomaaliya ka geysteen sanadkan 2020 waxay gaaraysaa 55 weerar halka sanadkii hore 2019 ay fuliyeen duqeyn kor u dhaafaysa 60 waxaana 2018 ay fuliyeen weerar duqeyn oo lagu bartilmaameedsaday 8 kamid ah kooxda Daesh warbixintan oo mid aad u dheer waxaa lagu soo gabagabeeyay xilliga la aasaasay kooxda Boko Haram iyo ujeedka loo dhisayba waxaana magaca kooxdan marka la fasiro la micno yahay waxbarashada reer galbeedku waa mamnuuc isla markaana la aasaasay sanadkii 2002 hogaankii iyo galeelay kolkii ay ahaayeen ducaad dadka khudbadaha u jeediya ugu dambeyntii waxaa la soo bandhigay dadka ku dhintay howlgallada waxa loogu yeero argixisada kuwa ku barakacay dhibaatooyinka ay la kulmeen dadka ku nool deegaanada ay ka dhaceen weeraradaas in ka badan 20,000 oo ruux ayaa ku dhimatay weerarada kooxda Boko Haram oo kaliya ay ka geysteen dalalka kale ah Nigeria, Niger, Cameroon iyo Chad 3.5 milyan oo ruux ayaa barakacday waxaana kooxaha hoostaga Al-Qaacida Daesh ee Afrika ay ku sugan lagu eedeeyay afduub dilal weeraro isugu jira qaraxyo kuwa toos ah barakicin iyo dhibaateen dadkan waxba galabsan sida ay sheegtay qaramada midoobay oo warbixin ka soo saartay arintan haddaba sidee ay howlgallada u kala fuliyeen ururada hoostaga Al-Qaacida sanadan 28 weerar ayay Al-Shabaab ka fuliyeen Soomaaliya iyo Kenya sida ku xusan xog ururinta laga sameeyay weeraradooda 22 weerar waxaa geystay kooxda Boko Haram waxaana ay ka fulisay qaaradda Afrika gaar ahaan galbeedka oo ay ku dhex nool yihiin xuduudda 4 dal isugeen labada howlgal waxaa ku dhimatay 600 oo ruux halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen weeraradaas Al-Shabaab iyo Boko Haram oo ku kala sugan labada cirif ee kala fog ee qaaradda waxay geysteen weerar ka kala dhacay bariga iyo galbeedka Afrika shanta urur ee warbixintan lagu kala xusaya Al-Shabaab Boko Haram Anti-Balaka oo ka dagaalanta Mali Al-Qaacida Maghrib iyo laamaha Daesh ee qaaradda ku sugan waxaa barbar socda dawlado iyo ururo caalami ah oo iyana ku howlan la dagaalanka ururadan oo galaangal muuqda ku leh qaaradda Afrika isla markaana fuliya weerar ka dhan ah Yaxye Maxamuud Maxamed warbaahinta Mustaqbal Muqdisho guud ahaan daawadayaal halkaas ayaan ku hakinayaa warka kooban ee Mustaqbal waad ku maasantiin daawashada warkeena macluumaadka aan baahinayno waxaad kala socon kartaan iyagoo maqal ah raadiyaha 89.7 FM iyagoo muuqaalana waxaad kala socon kartaan baraha internetka aan ku leenahay sida Facebook, YouTube iyo Twitter-ka sidoo kale qoraaladeena waxaad kala socon kartaan website-ka mustaqbalradio.com mahadsanidin